Soomaaliya waxaa ka da'ay roobab mihigaan ah oo aad loo sugayo oo aad loogu gaajaysnaa. Alxamdulillaah, barwaaqooyinkan waxay ku da'een gobollada dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah. Halkan waa Galgaduud, khaasatan Gurceel. Waxaa ka da'ay roob aad u caalami ah oo aad u qurux badan. Waxaa ka warbixinaya ninkan iyo rag kale. Haddaba roobabkan maasha Allah mihigaanka ah waa kuwa aad loogu baahnaa. Maasha Allah, roobkan aad ayaa loogu baahnaa waana Ilaahay baa noo keenay. Alxamdulillaah, waa farxad. Haddaba roob la leexsaday iyo qarracdaas ma jirto. Waxaas waa iska warbadi, mana ahan wax la qaadan karo ama aqliga bini'aadamka soo dhacaya. Waa kaas, waa nimco Ilaahay. Ilaahay gacantiisa waa weyn tahay. Dhinac walba barwaaqadaas ayaa ka muuqata. Maasha Allah, Ilaahay ha noo barakeeyo. Alxamdulillaah, waan ku faraxsanahay inaan maanta ku damaashaadno meel jiilaal ah oo hadda barwaaqadan isku beddeshay nimcadan iyo quruxdan aad u jeediin adink laftarkiina. Meeshaan ninkan aad u jeediin wuxuu ka sheekaynayaa meelaha roobku aad ugu da'een u dhow tuulooyinka u dhow magaalada Gurceel. Tuulada waxaa ugu horeysa Qarsooni, Laanle, Tuulacaano, Guleed Bogcad. Waa tuuladan khaasatan anugu ku soo barbaaray. Maasha Allah, barwaaqo bob dheere ilaa iyo halkaas. Nimcooyin badan ayuu ka sheegayaa. Maasha Allah, aad ayaa loogu dararsaday. Ilaahay ha noo siiyay nimcada Ilaahay na siiyay. Intaan ka bacdi waxaan sugaynaa inaan dhiilaha culanno oo barwaaqadan si fiican ugu faa'iideysano. Xoolaha ayaa aad noogu qurxoonaa doona saan rajaynayno. Dhabartooduna aad u fiicnaa doonto. Waxaan rajaynaynaa inaan ka maarmi doono wax walba oo bini'aadam baahnaashiisa ah. Ilaahay ayaan u baahanahay isaga nagu filan. Xooluhuna insha Allah way noo qurxoonayaan. Barwaaqooyin ay heli doonaa. Annaga dhan muhiimaddu waxa waaye waa inaan barwaaqadan ku shukrinaa si Ilaahay noogu barakeeyo mar kalena uusan naga dulqaadin. Alxamdulillaah, ma haddu waa taas.